kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dad badan waxay isweydiinayaan arrinta ku saabsan wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo marar kala duwan dowladda federaalku ay soo qaaday in ay howlgalkaasi bilaabayso laakiin dad badan waxay ka hadlayaan sababaha keenay dib u dhaca iyo waxa ilaa hadda keenay in howlgalkaasi aanu bilaabin dad kale waxay dood ka qabaan arrinta ku saabsan wajigii hore ee dagaalku ay leeyihiin ahdaaftii laga lahaa ma la gaaray mise lama gaarin maanta waxaana la jooga la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Xasan Guutaale oo aan su'aalahaas iyo kuwa kaleba weydiin doono Kamaal waa mahadsan tahay haddaan ku bilowno dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaad in dhawaalaba ka hadlayseen howlgalka wajiga labaad ee loo bixiyay phase 2 howlgalkaasi xagee maraya bismillaahir rahmaanir rahiim Ibrahim waa mahadsan tahay iyo dhageystayaasha BBC dowladda dagaal waxay ku jirtay al-shabaab markii uu madaxweynaha la doortayba sitimaan kadib hore ka gashay dagaalkaasna wuxuu ka soo bilowday runtii madaxweynuhu aaminsanaa dalkan in laga cirib tiro shabaabka iyo argixisada ama khawaarijta hadaan idhaahno wuxuuna runtii markaan madaxweynaha markuu soo laabtay uu u bedelay istaraatiijiyad ka ballaaran tii hore loo yaqaanay oo al-shabaab in lagula dagaalamo si maaliyadeed si ideolojiyo iyo si maxaa la yiraahdaa dagaal foolka fool intaba in lagu dagaalamo intaas in lagu soo maahan laakiin in xataa dadka shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka dawladda aysan ugu deyn inta wala dagaalman dawladda haddaan niraahno istaraatiijiyadeedii ma dhaqan gashay boqolkiiba boqol way dhaqan gashay way hirgashay marka runtii dagaalka marka haddaan ku fasiro wajiga koowaad iyo wajiga labaad iyo wajiga saddexaad waxa waaye waa nuucyo badan tahay sidoo kale dadku Soomaalida shacabka ma fahmayaan magacyadan koowaad iyo labaad iyo saddexaad laakiin waxa u muhiimsan dagaal khawaarij in lagu jiro oo dawladdu ay daacadna ka tahay kuna jirto kana shaqeyso laakiin waxa jira magacyo fara badan hadda ciidanka kale magacyo isticmaalaan oo dadka aysan ogeyn ciidanka wuxuu u yaqaanaan kale Elays 1 Elays 2 waxa laga yaabaa dadka ma maqlaan inta dagaalka bariga lagu xoreynayo kale meelahaas oo kale magacyo kale u leeyahay waxay u leeyihiin oo kale xataa phases hadda anaga aanan ogeyn oo phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 ay marayaan marka mar kasta oo macarika la qaadayo ama hal duulaan la qaadayo qorshaha ciidanka waa qorsheeyaan military operation situation room ka la galaa meeshu ka bilaawanayo maxaa la dagaalka meeshu ka bilaawanayo meeshu ku dhamaanayo waa la gulufkaas waa la xadidaa waa la calaamadeeyaa waa la geeyaa marka magacyadu dadka inay ku dawaqaan ma ahan ama phase 1 ama phase 2 ama phase 3 ama phase 4 laakiin wuxuu ku saabsan yahay baasha marka phase 1 waxa dadka u yaqaanaan waxa weeyaan in laga soo dhameystiro dhanka waqooyi oo dhan oo shabaabka koonfur la isugu soo xijiyo conceptiga Soomaalida u fudud waa kaasa marka anaga hadda waxaan u naqaanaa phase 1 dhamaadkiisa in galgaduud iyo koonfurta mudug iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe waxyaalaha ku dhiman oo ah clearingka ama nadiifinta waxyaalaha ku dhiman oo hadda anaga laba degmo ay ka joogaan galhareeri iyo ceelbuur in labadaas degmo iyo tuulooyinka ku hareeraysan hoostaga in laga soo nadiifiyo insha Allah ta'ala sida uu dhaqsiyaha badana loo shaqeyn doono adiga oo ah la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha ee la taliyaha madaxweynaha wasiirka gaashaandhigga taliyaasha ciidamada dhowrkii bilood ugu dambeeyay waxa ku celcelinayseen wajiga labaad ee dagaalkaas goormuu bilaabanaya dagaalka horta ugu socdaa dagaalka marka wajiga koowaad wajiga labaadba wajiga waxa muhiimsan in waqooyi laga soo dhamaado marka waxaan rabaa inaan u fahamto juqraafi ahaan oo isku mashquulin 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waxa muhiimsan in al-shabaab aan anagu istaraatiijiyada ciidanka inaan dhinac iska marino oo waqooyi ka soo dhameeyno oo xamar markii waqooyi la yiraahdo in mudug iyo galgaduud iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe laga soo baxo guulo badan laga gaaray marka haddii aan anaga hadda gulufka uu soo socdo hadda aan rabno aan ishayno oo hadda dagaalkuba uu socdo dagaalka hadda uu socdo afar bari ka hor daaru nimca ay soo weerareen dhibaato xoog leh lagu gaarsiiyay maalmo ka hor isbuuc ka hor baydhaba ayay waxay ku qabteen cunaqabateen saareen dhibaato xoog leh lagu gaarsiiyay marka dagaalku horta inuu joogsado ma dagaalku mar kasta furuntu waa ka socdaa dadka xamar jooga waxa laga yaabaa inay carro oo nabada ku jiraan ama aysan ka warqabin laakiin dagaalku dagaal joogsado ma aha laakiin hadba wax weeyaan hadba gulufku marna waa dagaal xarbi cisaabaad oo dheeraaday oo ayaguna ay wax maagan yihiin anaguna aan wax maagannahay anagu marka waxaan aaminsanahay ka soo nadiifinta gobolada galgaduud meelaha ay ka joogaan oo labada degmo ah waayo targetka wax u muhiimsan phase 1 inuu hadda dhamaado marka phase 1 dhamaadkiisa oo ah aan u naqaano in ceelbuur iyo degmada galhareeri iyo degmooyinka hoos yimaada
iyo deegaanada hoos yimaada inaan ka soo nadiifino ilaahay idinkiis waxaan isku dayna inaan ka soo dhammayno muddada ugu soo horeeya phase 2 markii la yidhahdo su-aasha ay weydiisay waan ku raaciyo phase 2 waxaan u naqaanaa galbeedka hiiraan iyo waxaan u naqaanaa galbeedka shabeellada dhexe webi ka kor wixii la yidhaahdo marka dhulkaas asagana iyo bakool oo runtii ayadana dhul waaweyn ay aad cadowga haystaan marka dhulkaasna waxaan aaminsannahay in haddii fayskii labaad ciidankiisii iyo qalabkiisii iyo maxaa la yidhahdaa saanadiisii waa diyaar ciidanka waa noo tababaran yihiin wax walba waa noo tababaran yihiin waxaan rabnaa inaan isla asaga gacanta labaad aan ku xijino hadduu ilaahay waayahay wejigii hore oo aad rabta inaad gebagabaysaan oo galguduud qaybo ka mida mudug koonfurteeda qaybo ka mida weli way joogaan markaa kadibna aad wejiga labaad gashaan wejigaa hore waxaa ka soo wareegatay bilaabashadiisii iyo waqtigii uu ku ekaa ilaa 6 bilood ilaa 5 bilood iyagaa weeraraa sida hadda sheegaysa daaranimco iyagaa soo weeraray baydhabo iyagaa go'doominta sameeyey marka caqabadaha idinka hortaagnaa inaad israacisaan oo dagaalka aad toos u wadaan maxay ahayd runtii annaga hadda waa inaan fahamto waxaan ku jirnaa laba shay aan hal shay isla wadnaa ciidan qaranna waa dhisaynaa oo ciidan qaran ayaan dhisaynaa dagaalna waa ku jirnaa muhiimadda yani meeshaas tiriga ku jirta waa fahmi kartaa yani runtii ibraahimow wax soomaaliya aan weligii laga qabanay yani muddo ka yar 7 bilooda waxaan ku tababarnay ciidan 12 kun oo ciidan ka badan aan soomaaliya annagoo dagaalkana ku jirna aan tababarna wadnay marka ciidanka aan tababarnay iyo ciidankada tababarka ku baqan iyo dagaalada aan ku jirno intaba waa hawl aan runtii ciidankaas marka in la tababaro oo la qalabeeyo oo haddana dibadda laga soo celiyo oo haddana koor Soomaaliyeed iyo doctriinka ciidanka loo sax la siiyo oo haddana maxaa la yiraahdaa ciidankaas in meedaanka la geeyo oo haddana maxaa la yiraahdaa intaas oo dhan shaqo sahlan aysan ahayn waa ogtahay oo waliba ciidanka hadda aan qorayna ma ahan waagi hore ciidanka inta la qoro oo hal meel laga qaado la sameey jiray ciidankan hadda waxaa laga soo xulaa Soomaaliya dhan laga soo xulaa gobol kasta laga soo xulaa ciidan muunad qaran leh oo integrated ah oo tababar fiican la siiyo oo quality-giisa la sameeyay annaga marka waxaan ka fikirayna waxyaalo short term inaan la aadin waxyaalo oo marka ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo gobol kasta Soomaaliya laga keenay oo training quality la soo siiyay maadaama askarigan weligiis waa jiri doona maanta waxa laga yaabaa dagaal yar inaa u baahanta marka dhismihii ciidankeena meesha waa ku jira dagaalna waa ku jirtaa marka labadaba waa isku wadnaa marka labadaas aslan ba yaraysanin dhibka jira annaga baarkii kor aad ugu qaadnay yani maanta hadda waxaan wareysanayay tan kale danab oo kale ciidamada Mareykanka ee tababaraan oo kale ciidan runtii aad u quality sareeyo laakiin waxa laga yaabaa 10 sano waxaa la tababar ciidan 1500 1800 ilaa 2000 wax ka yar gorgoro kale ciidan heshiiskeeda ayadana waxaan galnay 2015 aan galnay ayadana intaasoo sano waxaa la tababar 5000 oo ciidan haddana ciidanka Soomaaliyeed mar walba baashi waa inaa imagine inaa ciidan aad 12 bilood gudahood ama sanad ka yar aad ku tababarto ciidankaas oo waliba training high quality ay soo qaataan oo dalal ciidanka maxaa la yiraahdaa baasha lagu soo tababari jiray oo training complete ay soo qaataan inaan annaga marka waxaasoo dhan aan pressure saarno oo adduunka pressure aan saarno oo dowladda Soomaaliya ay serious ka tahay in ciidan Soomaaliyeed la tababaro haddana isla markiina furunta la geeyo inaysan sahlin haddana qalabka ugu sareeyo la siiyo runtii shaqo adag waaye oo ciidan la dhiso dagaaladana la hayo dhul weyn la baneeyo marka annaga marka inaan dhulkaas baneynay oo runtii baasha waxa kaloo muhiim ah inaa ciidankaaga ilaashato wax la force protection inaa samayso ciidankaaga aydan dhibaato isa gaarin laakiin marar badan bay dhibaato gaartay of course ciidanka dhibaato way gaari laano dagaal ku jirta furuna saaranta furunta marka ku jirtid oo anaga laba shay isku wadana dhulkii aan qabanana waa inaan ilaalino oo waa inaan ilaalino muhiim inoo tahay dhul dhan la ka qabsaday ilaa hadda anaga dhul al-shabaab aan ka qabsanay waliba kama qabsan dhul ciidankan ay ka soo bixin ma jirto haddana maxaa la yiraahdaa inaad isdifaacdo adoo xaalad difaac ku jirtid laakiin runirgood way dhacday Soomaaliya inaad dad qabsateen haddana runirgood wali anaga ka si tactical withdrawal waa dhici karaa laakiin dhulna la ka qabsaday oo anaga baasha yani anaga markaan dagaalka bilaabaynay balcad korkooda shabaab haystay wadada xamar iyo balcad shabaab haystay laakiin balcad iyo jawhar wali way joogaan Soomaaliya inta u dhaxaysa ma joogaan baawurtooda intaan ogahay aniga yani anaga baawurteen hadda xamar ka baxda ilaa gaalkacay waxay ku tagaan ciidankan ayaga tagaa diyaarad kuma qaadna ciidanka marka qaarkood laakiin wadada laamiga toos ma maraan waxay maraan wadada kore ee hiiraan qaybahan bariga hadda laga saaray al-shabaab al-shabaab meel laga saaray ma dhul al-shabaab ka saarnay weeyaan marka aniga waxaan qabaa ciidanka meelan al-shabaab ka saarnay ilaa aadan iyo baan al-shabaab ka saarnay ilaa ceel al-axmed aan ka saarnay ilaa galcad aan ka saarnay ceel dheer dhankeedan ka saarnay ilaa xardheer aan ka saarnay
dhul badan aan ka saaran waana haynaa dhulkii laakiin weli mudugna way joogaan galgaduudna way joogaan of course way joogaan laakiin annagu moogta dhibka jira annaga hadda waxaan victim u nahay ama aan u nahay dadku bahasha maxaa la baarkii aan kor u qaadnay saqafkii aan kor u qaadnay oo annagii dhulkii aan xoreynay iyo hayntiisii iyo tababarkii ciidankii iyo yani aan waxaan u nahay dadkii waxay yani mar walbaba ambitionkaasi kor u sii qaadmaya marka wax kale maahan expectationkan aan kor u qaadnay ee annaga wax dib u laabasho ah hal tilaabo oo ciidankan dib u soo laabtay ma jirto ciidankan dhulkii waa hayaa wuu ku dagaalamaa xaalad difaacu ku dagaalamaya xaalad difaac inaad ku dagaalamto khasaaraha waa ka badaya markaa xaalad hujum ku dagaalamaysa galguduud iyo mudug intay uga dhiman yihiin meeqa toddobaad meeqa bilood dadka maxaa u sheegi kartaa oo wejiga koowaad aad kusoo gabagabaynaysaa si aad u gashaan wejiga labaad ee hiiraan galbeedkeed ama shabeellada dhexe ibraahim dagaalka inaan waqti u qabto ma rabo annagu waa naga serious waa xaalad niman cadow meesha ku jira waa niman meesha meel yar oo kooban ka soo duulaamo weeyaan ma ku dhahayi maalin hebel ama taariikh hebelan maxaa la yidhahdaa aan ka saaraya kuma lihi laakiin waxaan ku leeyahay meeshaas annaga wax walba oo waxaan isugu geelinaynaa ciidankeenna ah inaan meesha ka saarno muhiimayna noo tahay inaan meesha ka saarno waxaan aaminsanahay cadowgu tactically cadowgu meesha uu rabo inuu ku dagaalamo waa meeshaas yartaa yani hadda maalan oo kale waxaan ku siinaa waxyaala khibradda aan baran oo kale yani markaan masaajid cali guduud aan ka saarnay masaajid cali guduud si fudud uga baxa aadan yabaal iyo nuurnigoodaan qabanay laakiin anagoo masaajid cali guduud qabanay cadalo laga keenay oo masaajid cali guduud laga qabtay oo maxaa la yidhahdaa nuur duqle iyo maxaa la yidhahdaa ruunurgood iyo la qabtay aadan yabaal ayuu wuxuu galay meel la yidhahda juxay meel yidhahda u galay juxay inuu laga saaro waxay qaadatay isbuuciyay qaadatay ilaa aad duqaan isticmaasheen ilaa duqaan aan isticmaalno marka yani waa inaad fahamto ka saarista meelaha muhiimka iyo inuu ciidanka meel kuu galo laba shay kala tahay laakiin macnaheeda maahan inuu ciidankeena uusan shaqo qabanin maahan inaan guul la gaarin macnaheeda maaha laakiin inaysan meeshaas aysan muddo ku jiri karin ay ku dhuulama karin maaha yani intaasoo kale hadda waxaa jirta meel oo mudugoo kale koonfurta mudugoo kale markii ama bariga mudug markii la waxaa jirta meel qaycad la yidhaahdo oo bacadweyn iyo wasiil u dhaxayso waa sax dagaal yani maya godaday ka qoteen waqti dheer ay qaadatay mudday ku jirtay waa sax waxaa jirta marka meelo fara badan oo si istaraatiijiga looga saari karo si fudud iyo meelo waxaa jirta ay waqti ku qaadanaysa inay baashi ku jiraan macnaheeda maaha marka inay argagixisadu efficient yihiin maa macnaheeda maaha macnaheeda waxa waaye waa koox suicide ah ama istijaadiyiina oo loogu talagalay meeshaas inay ku dhammaato marka annaga marka laba shay aan ka rabaa meesha inaan ka xoreyno ciidankeena inaan ilaalino therefore markaas waxaa u baahan tahay tactic oo ka sarreeya u baahan tahay marka waqti ma sheegi waxaa u baahan tahay inaad waqti aad siiso oo ninkaas aad maxaa la yidhahdaa khatartiisa aad inta yarayso asagana aad ka takhalusaa u baahan tahay annaga marka meesha uu ka jiro hadda dhul macno leh nagama haysto laakiin waxaan u baahannahay inaan khatartiisana la yareeyo lagana takhaluso waqti ay qaadanayso de inaan maxaa maaha laakiin waa naga go-anta inaan ka saaran waana ka saarayna saa meelo badan uga soo waxaad ii sheegtay in wejigii koowaad gabagabadiisa marka mudug iyo galgaduud laga soo saaray inaad wejiga labaad hiiraan galbeedkeeda shabeellada dhexe galbeedkeeda ilaa bakool marka sida muuqata wejiga labaad south west ee qaybo ka mida iyo jubbaland waa laga saaray iyana mar kale noqonaysaa dagaalku waa isku xiga haddaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed operation waxay ka fuliyaan baydhabo maxaa la yiraahdaa afkeeda ka fuliyeen maalin dhaweed ciidan badana runtii looga laayay kalsooniyan waxaan ku qabnaa in si talantaaliya meel walba dagaalka loo geli karo laakiin runtii meeshaan yarta ay dowladda ka qoteen oo sida suicide-ka ay ugu jiraan oo ay ugu talagaleen inay meesha waxa jooga ay ku dhameeyaan in la soo afjaro anaga waxaan u arnaa inay priority tahay maxaa yeelay tactically ciidanka waxay u tahay in dhabarka hal dhinac aan dhabarka laga jirin oo dhinac laga jiro waxaan aaminsanahay meesha markii laga saaro in ay guuldaradoodu aysan kala harayn aan aaminsanahay anaga tactically dalalka safka hore ee dhowr jeer madaxweynaha shirarkii xamar lagu qabtay dikaale kiwi nairobi kuwii addis ababa dhammaantood waxay inay howlgalka ka soo qayb galaan ilaa hadda ma aragna dhaqdhaqaaqooda marka laga reebo xuduudaha qaar meelaha ee Ethiopia inay dhinacyada xuduudda ka soo gudubtay marka maxaa ku dhacay dalalka safka hore madaxweynuhu waa tuu shir halkan uu qabtay kadib shirar badan waxay ka dhaceen addis ababa iyo Nairobi oo mustawaha commanderska ah waa ka go'an tahay dagaalka inay nala galaan run ahaantiina waa dareensan yihiin mushkiladda ay argixisada khawaarijta al-shabaab ay ku hayaan geeska Afrika dee waa ogtiin sanadkii la soo dhaafay dabayaaqadiisii inay
ciidan badan ay argixisadu ay geliyeen dowladda dalka Ethiopia in lagu soo laayay oo ay ku soo jabeen baasha ah waa ogtiin in Ethiopia maxaa la Kenya hadeer ay gobolka Soomaalida waqooyi North Eastern waqooyi bari la yiraahdo inay dib kale ku hayaan ayadana waa ogtiin labada dowladba way ka go'an tahay in runtii argixisada lala dagaalo in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ay kala shaqeeyaan haddana ayagoo ATMIS ay joogaan ayagoo bilateral ah oo dawlado ahna way joogaan inay dagaalka ay si serious u soo galaan way ka go'an tahay mushkiladu waxaa jira runtii aan fahmi karno oo aad laftada fahmi karto xilli roobaad lagu jira hadda oo xilli roobaadka xilli u weyn iyo in la soo dhameystiro qaybtii koowaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laftiisa waa inuu horkaco annaga hadda ma rabno ciidan ajnabi ah inay meel noo xoreeyaan kaliya waxaan rabnaa waa iskaashi heer goboleed ah waa maahane laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markuu soo dhameeyo phase 1ka qaybtiisa inuu asaga horkaco dagaalka iskaashiga dawladahan wuxuu noqon doonaa waxyaalo oo iskaashi technical iyo meelo muayana in la iska garabsado laakiin shaqada heavy lifting waxa la dhaho ama shaqada culayska ugu badan cid ay saaran tahay waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan aaminsanahay inay ku filayeen arrintaas Kamaal tani markii aad dagaalka bilowdeen warbaahinta dawladda media idii qaabilsan waxay ka hadlaysay tiro badan oo dhimashada al-shabaab ah 100 200 tirooyinkaas marka la isu geeyo waa dhowr kun marka la eego dhaawaca iyo dhimashada dad badan waxay isleeyihiin shabaab oo markoodii hore 5,000 7,000 lagu sheegi jiray hadday 4,000 ama 5,000 dhaawac iyo dhimasho noqdeen shabaabka jooga waxa ka marka miidinka ka badbadiya mise shabaabka markii hore intiisaas ka badnaa run ahaantii aniga waxaan aaminsanahay shabaabka 5 sano ama 6-7 sano la soo dhaafay shaqo badan lagama qaban runta markii laga hadlo dagaal active lagu ma jirin yani dagaal furun ah oo la galay 2019 ayaa waxa dhacay sabiib iyo caanoole inta la socdana wax aad u yaray ahayd oo runtii in xamar conceptigu wuxuu ahaa si xamar looga difaaco in buundooyinka xamar la soo xiro dagaal ma ahayn ayaga ay la rabay in lagu wiiqa ma ahayn marka dood ani agteed qiyaasida aan qabo maadaama ay heleen fursad ay joogeen dhul fara badan oo Soomaaliyeed ay u heleen access wiilal fara badan oo Soomaaliyeed oo shaqo la'aan oo aqoon la'aan oo diinta aan aqoon oo baashi ah inay dhulkaas ay ka qortaan maadaama ay fursad u heleen dhaqaale fara badan oo ay runtii ilaa dekada Soomaaliya ay canshuuraan dekedan Muqdisho ay canshuuraan ganacsatada Muqdisho ay canshuur badan ka qaadaan waxaas oo dhan runtii waxay siisay awood fara badan oo dhaqaalihiina waa heleen ay ku hayrgalaysanayaan wiilashiina waa heleen dhaqaalihiina waa heleen marka tiradii hore loo sheegi jiray tira ka badan ay u muuqdaan tirada cid sheegi jirta ma aqaan aniga laakiin runtii ciidan oo xoog leh ay ku dagaalamaan ay 7 sano ay samaysteen marka runtiina anagu hadeer serious aan waxaan ka nahay in anagu aan marna la dheelsan maadaama ay gobol fara badan Soomaaliya joogan maadaama ay meel maxaa la ay hadana ay ka dagaalamaan ay goboladii kale ay u gudbeen Kenya iyo Ethiopia anagu marka numberkooda ma rabno inaan dheelsano mana rabno inaan maxaa la yiraahdaa aan ku qaadano baasho laakiin numberkaasi yihiin hadda inaan ku dhahamro halka inaan ka sheeg maro tirada laakiin aad sheegtaan oo aad bahaysaan dhimashadooda iyo dhaawac tirada hay'adaha amniga way haystaan xog dhab ay ka haystaan tirada guud waxaan ka hadlayaa argixisada tirada khasaaraha aan gaarnana أنا وحنا أمسنا هو برباطل يعني مركز نمبر كوالي قانا ما نمبر قرصون بكر أصلا ما جيري ما قرصون توين أوقات جيري تنقرصوته جيري بيننا لقى مشي كر جيري نينكي أنت عدو قد أنت ليقانا لكن مير يقول لفتيجو ده أديك لفتيجو ده عاد واستعمال لسه ما تبين لجودي لأن كنت أنا بقول ترى هذا يقول نستاسو كلي هذا قصبا أنا كنت أنا بقول لنا مجرته هناك دتك قفك أنت يمشوا كل أنت ماشي أنت صورتي نمبرس ليقان واحد marka hadii dagaal la galana waa la soo bandhigaa waana la arkaa ani kumalihi maxaa la yiraahdaa baashi waaye yani number hebel laakiin inta aniga waa la socday last 1 year inta dagaalka lagu jiray waa la socday numbers kala sheegay boqolkiiba intaan numbers aan rumaysan karo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo bandhigayeen yahay ugu dambeyntii la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha tahay meelaha siyaasadda amniga lagu jaangooyo dhan waa joogtaa dadka Soomaalida ama waji koowaad u bixi ama waji labaad u bixi ama mid afraad u bixi goormaad u sheegi kartaa al-shabaab in South Central ama gobolada dhexe iyo kuwa koonfurta in laga soo saaro tuulo degmo iyo miyiga xitaa anaga meeqay qaadanaysa anaga dagaalka al-shabaab
waa urur argaxiso ah adduunka oo dhan lagala dagaalo Soomaalidu xukuumaddan aysan wax xoog aysan u reeban inay la dagaasho waxaan aaminsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u soo afjari karno laakiin ma kulihi maalin hebel ama saacad hebel ama daqiiqad hebel aan soo afjarina kuma lihi laakiin aan waxaan aaminsanahay dagaal ay dowladda Soomaaliya daacad ka ah ciidankeedii ay haysato qalabkeedii ay haysato wax walba ay u baahan tahayna ay ka shaqeyso inay soo hesho ciidanka xoogga Soomaaliya dhismihiisa meeshaas ku jira amni waxaan rabnaa la hana karo annaga aan hana karno oo meeshii aan ka saarno bileyskeedii nabad sugideedii maamulkeedii stabilizationkeedii ama wixii kale oo ummadda maxaa la Soomaaliyeed ay oo meeshaas loogu tagay oo dad dawladdu qalbigooda inay hanato ay maxaa la yiraahdaa ku heleed runtii dagaalka argagixisada waa inaa fahamto Ibrahim ama dadka Soomaaliyeed inay fahmaan dagaalka argagixisadu wuxuu ka bilowdaa ma ahan dagaal wiilal yaryar kaliya ay xabad ridayaan dawladdu waxay u jirtaa si ideological oo fikirkan xag jirka horta in la dhameystiro intuu fikirka xag jirka u socdo oo ra'yiin u socdo laftiisa yani waxa laga yaabaa argagixiso cusub soo bixi karta dawlado hadda waxaa jira stable ah oo ilaa hadda la dagaalama dawlado badan stable la dagaalama marka aniga haddaan ku iraahdo maalintaas argagixisada Pakistan la dagaalanta laakiin muddaxileedkiina dawladda Masar la dagaalanta Sacuudiya la dagaalama dawlado badan oo khaliijka la dagaalama Yurub la dagaalama Faransa la dagaalama iyo Jarmalka la dagaalama fikirka xag jirka ah marka uu dhalanayo xilli uu dhalanayo isu u dhalanayo si anaga aan controlno ma laakiin waxa laga rabaa dhulka xukumaan waxa laga anaga waxa naga go'an in aysan nimankaas aysan dhul aysan xukumin Soomaaliyeed degmo Soomaaliyeed insa ka talin inaan gaarsiino inta aan xog joogno gudaheed